ciyaartan waxa uu qabanay isdhexgalka dhalinyarada ee uu nagu taageeray madaxweyne xasan cali kheyre oo nagu dhiirigeliyay waxaan ahay laba kooxood oo taageersan madaxweynaha waxaana jecelnahay inaan mar walba madaxweynaha garab istaagno waana hubnaa inuu ku guuleysanayo madaxtinimada sanadkan waxaa ku taageernay madaxweynaha anagu reer wasaaru soo ahaa waana soo daawanay waxqabadyadiisana waxba ka sheekanaa wax badan buu Soomaaliya u soo qabtay hadeerna tabti waan rajeynaa insha Allah inuu Soomaaliya ka dhigi doono one for the one man anagu taageero xasan cali kheyre iskamana taageerin waxaan ku taageeray qof kasta wuxuu ku tusaa ku taageertaa wuxuu soo noqday ninkani rasuul wasaaraha markuu soo noqday waa aragnay waxyaalo badan hiigsi iyo wuxuu lahaa iyo ximi annagoo jeclayn inuu sii hayo haddana ma noqon weli hadda waxaan sii jecelnahay inuu noqdo madaxweynaha sanadkan soo socda oo musharax madaxweyne weeye waxaana jecelnahay inuu ku guuleysto waxaana ugu jeclaaday kuma taageersani ciyaartana umaana qaban anagu iskamaana qaban waayo qof kasta wuxuu ku tusaa lagu taageeraa musharaxan sida u tayeysan yahay sida uu aqoontiisa u tahay sida uu maanta Soomaaliya sida ay tahay xaaladda ay ku jidho ninka ka samata bixin kara inuu yahay marka u aragnay musharax madaxweyne xasan cali kheyre waxaana jecelnahay inuu ku guuleysto maanta halkan waxaan iskugu nimid inaan ku taageerno musharax madaxweyne xasan cali kheyre imaanshaheena maanta taasay khusaysaa waxaan ku taageeraynaa waxyaabo badan oo aan isaga aan ka aragnay kolleyba ka sportis ahaan annagu wuxuu yahay mid mar walba na garab taagan sida noogu maqaalaa oo aan ku ognahay ama aan ku aragnayna wuxuuna siiyey garoomo casriya buu noo dhisay garoomo casriya buu nooga qayb qaatay garoomo casriya oo dambana waxaan rajeynaynaa markuu madaxweyne noqdo inuu noo sii dhisi doono haddii ilaahay marka Puntland ahaan waxaan nahay mar walba qof garabkiisa taagan oo taageeraya musharax madaxweyne waxaan jeclaan lahayn in aan annaga hortiisa aan tagno wax walba baahiyo ee dhalinyarta qabta annaga ka ahaan koox ahaan uma hadlayno gobol kasta iyo magaalo kasta ma u hadlaynaa in musharax madaxweynaha hor tagno kadibna wixii afkaarteena iyo fikradeena aan u gudbino aan ognahay xasan cali kheyre inuu yahay musharax madaxweyne in badan ka qaban doono arinteena waxaan rajeynayaa waxyaalo badan aan rajeynaya inuu qaban doono siba soo garoomada hadda nagu dhisay garoomada Puntland nagu dhisay baan rajeynayaa iyo dhalinyarta soo wada shaqeynayo markii waan taageerayaa guriga gobolnimo